mudane maxamed yuusuf jaamac indhashaale madaxweynaha dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wasiirada Khaatumo ayaa booqday garoonka diyaaradaha magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay maamulka garoonka Buuhoodle. ugu horreynna waxaa halkaasi hadal soo dhaweeyna ka jeediyay Xasan Faarax Baad oo ah maamulaha garoonka diyaaradaha magaalada Buuhoodle. wuxuuna madaxweynaha Khaatumo uga mahad celiyay sida wanaagsan ay u soo booqdeen garoonka diyaaradaha magaalada Buuhoodle. airport Buuhoodle Khaatumo Soomaaliya waxaanu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha ayaanu ku soo dhaweynaynaa oo aanu jecelahay inaanu tusno ama jeclaystay inuu soo arko airportkiisa ummadiisa loo sameeyay waxa ka dhiman iyo waxa u hadhay waxay u qabsoomi waayeen inaanu u gudbino ayaanu jecelahay madaxweyne waanu kugu soo dhaweynay golaha wasaaradda iyo adigaba sidaa darteed waxaanu jeclaysanay ama madaxweynuhu noo sheegay inuu wax ka qaban doono si degdeg inuu wax uga qaban doono inta hadhay inuu wax ka qaban doono ayaanu jeclaysanay isaguna uu jeclaystay oo nagu yidhi waxaan rajaynaynaa inuu ka qaban doono waayo waa nin gobolka u dhashay waa nin wadaniya waa nin daacada waa nin maanta maamulka Khaatumo State Khaatumo Soomaaliya madax u ah waana nin aan u filayno inuu aad iyo aad karti iyo hufnaan u leeyahay madaxweyne waanu kugu soo dhaweynay airportkii waad joogtaa waad aragtay horeyna waad u timi dalkana adaa madaxweyne u ah airportku aduu ku sugayaa adiga iyo maamulkaaga Khaatumo ayuu sugayaa annaguna idinkaanu idin sugaynaa kuna soo dhawow airportka wixii aad ka qabanaysana ummadda adiga og waana airportkeennii mid kale oo meel kale wax laga soo mariyo male idinkaana idinla sugaynay idinkaanu idinku tacabnay idinkaanu idin samaynay wax qof jeebkii ka soo baxa ayaanu ku samaynay hay'adina ma caawin labada maamul hareeraha naga xigaana xolaad bayba noo qaadeen oo way airportka way cadaadinayeen si ay gacanta noogu hayaan annana gacantoodii waa ka baxnay maanta Khaatumo ayaa naga saartay madaxweyne ku soo dhawo maxamed yuusuf jaamac indhashaale madaxweynaha Khaatumo State ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaanu sheegay in maamulka Khaatumo State iyo shacabkiisu dhawaan ay soo afjari doonaan dhismaha garoonka diyaaradaha oo muddo ka badan 2 sano socday nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam wasalaam ayaa maxay ahayd maamulayaasha garoonka iyo beelweynta Khaatumo waa salaamaya salaanta haddaan ka gudbo anoo ka mid ah golaha madaxtooyada Khaatumo oo booqasho u nimi maxay ahayd garoonka kan Buuhoodle ku yaala diyaaradaha ay fadhiistaan oo ka mid ah maxay ahayd xubin hadda dhinaca dhaqaale iyo dhinaca communication iyo dhinaca walba hadii ay qayb weyn ka qaadan karto horumarinta deegaanka Khaatumo maxay ahayd maaha garoonku mid loogu talagalay inay diyaarada ka kacaan oo fadhiistaan ahmiyadda uu leeyahay waxa laga yaabaa inay ahayn qof dibadda ka imanayo soo fadhiistay ahmiyadda uu garoon leeyahay hadii inteena badan waynu ka dheeragsanahay waa il dhaqaale waa il xiriir caalami ah waa muraayad hadii leeyahay horumarinta deegaanka iyo dhaqaalahaba xoog uga qayb qaadan karaysa iyo xiriirka caalamka sida degdeg ah loola yeesho ahmiyadda uu leeyahay dibkeeda leeyahay way fara badan tahay inta kaliya kuma koobnaa waxa aan aad uga mahad celinaya qolada maxay ahayd dibkeeda leeyahay muddada badan 2 sano ku dhow soo waday intay jilbaha dhulka dhigaan maxay ahayd gacmahooda ku riixayay dhagxanta tan imika inoo muuqata dibkeeda leeyahay garoonku ku samaysan yahay cagaf ma iman grader ma iman ruler ma iman garoonkan siman intay dadku fadhiistaan baa gacmahooda lagu riixayaa lagu sameeyay gacmahooda ilaahay un baa abaalkooda gudi kara anana aad baan uga mahad celinaynaa xaqiiqada runta ama iyaga ha ahaato ama kuwii hadibkeeda leeyahay jaaliyadda Khaatumo ka tirsan maxay ahayd suurta gelinay dhaqaale ahaan suurta gelinay inay dadkan isugu yimaadaan dhamaantood baa hadibkeeda looga mahad celinay ilaahayna khayr ha siiyo haddaan inta ka gudbo ilaahay ma hadiye
deegaanka khaatumo dee maamul baa ka dhashay sidii sanadkan bilowgiisa aynu wada ogeynba waxyaabaha maamulka loo igmaday bay ka mid tahay haddii bidkeeda leeyahay horumarinta deegaanku ay ka mid tahay haddii bidkeeda leeyahay garoomada caalamiga ee wax ka soo degayaan waa ka mid waxaynu shalay ogeyn haddii bidkeeda leeyahay madaxweynaha maxay ahayd axmed karaashi talex garoonkii uu maalintii dhawood ka bixinayay warbixinta ka bixinayay oo xaruntii ku meel gaarka ee ah haddii bidkeeda leeyahay ii sheegay xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka khaatumo ah maxay ahayd magaalo madaxdii maamul goboleedka dibadka leeyahay waynu ogsoonay iyo garoomadii dibadda inay maqan yihiin dhaqsay u xoroobi doonaan laakiin kan iminka aynu joogno iyo kaa taleex iyo kuwo kale oo badan ba dibadka leeyahay waa la develop garayn doonaa mustaqbalka haddii aan la idmo maaha hal garoon iyo laba garoon iyo waxaynu baahidaynu ay tahay way ka badan tahay deegaanka khaatumo wuu ballaaran yahay dibadka leeyahay insha Allah waa ku dadaali doonaa in meelo fara badan dibadka leeyahay ay ka degaan oo ka kacaan dibadka leeyahay diyaarado waxaanu dadaalkeeda samayn doonaa haddii alla idmo oo aad ugu dadaali doonaa in uu sida ugu dhaqsaha badan maxay ahayd uu u dhammaado kani ama dadweynaha khaatumo ha ahaado ama hay-adaha caalamka internationalka ahaada intaba waxaanu ugu baaqaynaa in haddii bidkeeda leeyahay ay dhammaystirka iyo ka qayb qaadashada maxay ahayd howlaha garoomada ee ka socda maxay ahayd deegaanka khaatumo ka socda inay qayb weyn ka qaataan markaad si u eegto waan soo marray garoonka kan waan soo marrayo 6 bilood ka hor waan soo marray halka kan sidoo maanta yahay 6 bilood ka hor dibka leeyahay farq aad weyn baa ka muuqda u dhaxeeya waxaan ku rajo weynaa in muddo kooban sidaan maxay ahayd odayaasha ka mas'uulka ah ama farsamo yaqaanada gacanta ku haya hawshan aan ka maqlayay warbixintayna siinayeen muddo yaroo kooban oo bila haddii la isla helo hal mar haddii bidkeeda leeyahay waxaan fara badnaynba oo maxay ahayd u dhiman muddo bila in haddii bidkeeda leeyahay waa marka weliba gacanta lagaga shaqaynayo haddii la helo haddii bidkeeda leeyahay waxyaabaha ay ka mid yihiin gareerku ay ka mid tahayna dee waxayba noqonaysaa wiig iyo 2 wiigba haddii bidkeeda leeyahay oo bisha kale barkeeda ay kusoo dhammaanaysaa hawsha kusoo dhammaystirmaysaa meelan u fuulo waxaan ku rajo weynaa inaynu haddii bidkeeda leeyahay intii 2 sano iyo siyaadu soo socday haddii waxa uu halay bay bil tahay bisha inaynu hal mar maxay ahayd aynu gacanta wada saarno oo sidii u dhammaystirmi lahaa aynu falugeed ka wada aynu falugeed qabanno kana wada qayb qaadano mar labaad waa in salaamaya waxaan idin leeyahay dibadkeeda leeyahay hal noqoto waxqabadyada ugu horeeya maamulka khaatumo dibadkeeda leeyahay intii uu dhisnaa uu suurto geliyay ee dhammaystiray bilowgiisii lamaanan kowsan laakiin dhammaystirkiisa si rasmi ah xoog leh baan uga qayb qaadanaynaa wabillahi tawfiiq buraan burmahayo maanta waa maalin weyn aan la kala maqnaan maanta waa maalin booqashada madaxweynaha Khaatumo State of Somalia iyo wasiiradiisa ayaa ku soo beegmayay xilli la wado qorshe lagu dhammaystirayo garoonka diyaaradaha magaalada Buuhoodle oo muddo qabiya ahaa Maliyuun Axmed Xasan telefishinka caalamiga ee Somalisat magaalada Buuhoodle